kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal halkaad naga daawanaysaan waa goobta wararka. Xalse xushmad kaaga codsanayna inaad janaalkeena xukuumato si aad u hesho warbixinada aan halkaa kusoo gudbino. Qodobada aad ku daawan doontaan barnaamijkeena intuu socdo waxaa ka mid ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo qartay in ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya lagu soo jebiyay dagaalkii cusbeyne. Faahfaahin ku saabsan qarax ka dhacay magaalada Muqdisho. Koob uu shir uga socday xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab oo weerar culus lagu qaaday. madaxweynaha Soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ka qayb galay kulan ka dhacay Twitter Space ayaa ka hadlay arrimo ku aadan dagaalka adag ee dowladdiisa kula jirta kooxda argagixisada Al-Shabaab. ugu horreyn madaxweynaha ayaa qirtay in ciidamada xoogga dalka lagu jebiyay dagaalkii xoogganaa ee dhawaan ka dhacay deegaanka Cusweyne ee gobolka Galgaduud, kaas oo dhaliyay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo burbur xooggan intaba. waxaa kale oo tilmaamay intaasi ay keentay in ciidamada dib looga soo celiyo xeryahoodii si ay u nastaan niyaddana loogu dhiso. madaxweynaha ayaa sidoo kale madasha ku soo bandhigay guulaha ilaa ay hadda dowladdiisu ka gaartay dagaalka ka socda inta badan gobollada dalka. sheekh maxamuud ayaa shaaca ka qaaday in ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo isgarabsanayay dhul baaxad leh ka qabsadeen kooxda tan iyo markii oo bilowday gulufka. waxa uuna sheegay in guulo waaweyn oo muhiim ay ka gaareen ciidamada huwanta. sidoo kale madaxweynaha ayaa xusay in haatan uu gabagaba yahay wejiga labaad ee howlgalka, islamarkaana ay kasoo dhammaan doonaan Hirshabelle iyo Galmudug, kadibna qorshe uu yahay maamulada kale gaar ahaan Jubbaland iyo Koonfur Galbeed Soomaaliya. ugu dambeyn madaxweynaha dowladda Soomaaliya ayaa mar kale ku celiyay baaqiisa ku aadan shacab iyo dowlad in loo midoobo dagaalka lagula jiro kooxda Al-Shabaab oo hadda maraya meel wanaagsan. hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo haatan madaxweynaha Soomaaliya uu joogo jiidda hore ee dagaalka, gaar ahaan Dhuusamareeb oo u tagay inuu ka hogaamiyo dagaalka. faahfaahin qarax ka dhacay magaalada Muqdisho. warar kala duwan oo ka soo baxay qarax xooggan oo goor ka dhacay qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho, kaas oo jugtiisa si xooggan looga maqlay inta badan caasimadda. qarax ayaa ka dhashay gaari nooca raaxada wuxuuna ka dhacay halka loo yaqaano Warlaliska oo ka tirsan degmada Daynile, sida ay noo xaqiijiyeen ilo wanaagsan lagu kalsoonaan karo. wararka ayaa sheegaya in gaariga markii hore ka shakiyeen ciidamada ammaanka, islamarkaana uu qarxay xilli lagu ulanaa in baaris lagu sameeyo. afhayeenka booliska Soomaaliya Sadiq Doodisho ayaa sheegay in gacanta lagu dhigay 2 nin oo la socday baabuurka qarxay, kuwaasoo la horgeyn doona cadaaladda. Doodisho ayaa sidoo kale xaqiijiyay in qaraxani uusan geysan khasaare nafeed oo soo gaaray ciidamada fashiliyay iyo sidoo kale dadka shacabka. qaraxani ayaa sidoo kale saameyn ku yeeshay dhaqdhaqaaqa goobta uu ka dhacay, iyada oo in muddo ah hakad galay isu socodka dadweynaha iyo gaadiidka. weerarkan ayaa qayb ka noqday falalka amni darro ee haatan ka dhacay magaalada Muqdisho, inkastoo dhanka kale ay howlgallo amni xaqiijinaya wadaan ciidamada dowladda. Al-Shabaab oo jab xooggan lagu gaarsiiyey dagaalada ka socda gobollada dalka ayaa u muuqata inay iyaduna culays soo saartay magaalada Muqdisho ay ka fulinayso weerar culus. goob uu shir uga socday xubno ka tirsan Al-Shabaab oo weerar culus lagu qaaday. wararka ka imaanaya gobolka Mudug ayaa sheegaya in maanta ciidamada dowladda oo kaashanaya kuwa caalamiga iyo howlgal culus ka sameeyeen duleedka degmada Haradheere ee gobolkaasi. howlgalkan ay barbar socdeen duqeyn dhanka cirka ayaa waxaa lagu beegsaday goob ay shir uga socday xubno ka tirsan Al-Shabaab oo ku taala deegaanka Dumay ee hoostaga magaalada xeebeedka Haradheere ee gobolka Mudug. saxaafadda ka soo baxay dowladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in xubnaha goobta ku sugnaa ay ku jireen horjoogayaal sare iyo maleeshiyaad kale. howlgal qorshaysan oo iska kaashanayeen ciidanka qaranka iyo saaxiibada caalamiga ayaa ka dhacay deegaanka Dumay oo hoostaga degmada Haradheere ee gobolka Mudug. howlgalka ayaa lagu beegsaday saldhig ay khawaarijta ku lahaayeen deegaankan oo xilligaas ay shir ku lahaayeen horjoogayaal iyo maleeshiyada khawaarij ah, ayaa lagu yiri qoraalka ay soo saartay dowladda Soomaaliya. sidoo kale dowladda Soomaaliya sheegtay in goobta lagu laayay dhammaan xubnihii ku shirayay halkaasi, sidoo kalena la burburiyay saldhigyadii la weeraray. xaaladda ayaa weli kacsan, waxaana dhaqdhaqaaqyo iska soo horjeeda ay ka socdaan deegaanka Dumay ee gobolka Mudug. dhanka kale ma jiro wax hadal oo ka soo baxay Al-Shabaab ee ku aadan weerarkaasi ay guusha ka sheegatay dowladda Soomaaliya. gobolka Mudug ayaa ka mid ah gobollada ay ka socdaan howlgallada ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab ee uu xoogooda ka socda guud ahaan deegaanada maamulka Galmudug.